gudaha fasal ku yaala gobolka Rift Valley arday ayaa jaalayaashiisa la fasalka ah la qaadanaya xiisad waxay xiran tahay dharka iskuulka si kastaba hal farqi ayaa jira. Briskela Sitieni waxay ka weyn tahay 80 sano ardada ay la fadhiso. bishii February ayay xirtay da'da 99 sano. kulaabashadeeda iskuulka ayay ku sheegtay inay wagol leedahay tusaale nool inay u noqoto ilmaha ay ayadu u tahay. waxay sidoo kale doonaysaa barashada xirfad cusub. waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo dhakhtar waayo waxaan ahaan jiray kalkaaliso ayay u sheegtay wakaaladda Reuters. waxay intaasi ku dartay in ubadkeedu ay ahaayeen kuwa taageero xoogan ka muujiyay go'aankeeda. sanadkii 2003 dowladda Kenya ayaa waxbarashada dugsiga hoose ka dhigtay lacag la'aan. tani waxay u ogolaatay xubnaha da'da ah ee bulshada oo aan yaraantoodii helin fursad waxbarasho inay ku laabtaan iskuulada. tanina waxay Sitieni siisay wax ka badan waxbarasho. waxay sidoo kale noqotay xidig filimada samaysa. waxay hadda ku jirtaa fasalka 6 ee dugsiga hoose. hadafkeeduna wuxuu had iyo jeer ahaa mid ka qaabanaya masiirka maalmaha nolosheeda ka dhiman. talaabteeda ah ku noqoshada iskuulka waxay timid markii inanta ay ayadu u tahay ay ka hartay tacliinta kadib kolkii uu uur ku soo baxay. markaas ayayna go'aansatay inay iyadu tusaale nool u noqoto ilmaheeda si aysan waxbarashada uga harin. waxay sheegtay inay ku raaxaysato howlaha iskuulka laga qabto sida ciyaaraha. kaalin weyn ayay ka qaadataa nidaaminta iyo isku duwidda fasalka. ardayda iyo macallimiintuna waa kuwa la dhacsan doorka ay ku leedahay xilliga ay ku jiraan xiisadaha. markan uu baxo banaanka fasalka oo dhan wuu aamusaa ayay tiri bare Leonida Talam.